السلام عليكم Soomaaliyeey see leeyahay ma la fiican yahay horta ilaahay subxaana wa tacaala Soomaali iga dhigay ilaahay baana iga dhaliyay meelaan ka aadana ma aqaan laakiin waxaan la yaabanahay Soomaalida majinkii Nabi Suleymaan la yiri wuu xiray baa lagu soo furay baa lagu soo fardi maxaa Soomaalida si ka ah saqiir iyo kabiir naag weyn iyo naag yar iyo oday iyo meel dhaxaad yaa maxaa ina ku dhacay xayadii iyo xishoodkii baa ina ka tegay haddana hooyooyinkiinba alla ina ku diray haddana heesaa qaadaysina waxaa leedihiin hooyadu waa saasoo waa ammaanaysa beenta maa iska daysiin maxaa haweenka ina ku diray midada kaleeta caalamka ilaahay wax aan Soomaali ahayn oo iscaaya ma jiraan ummadda ilaahay horumar iyo waxqabad qof kasta da' kasta ha joogo sidii nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam ayay ku dhaqmaan dadkan caddaanka aan la joogno war ilaahay ka baqa xishooda oo ismaqla horta wax ismaqlaayaba male hal gabara ay maqli weyso laakiin dadku waa sixirayeen ba u malaynaya waxaa maqlay waqtiga nabi Suleymaan calayhi salaam jinka wuu xirxiri jiray jinkii oo dhan Soomaaliya lagu soo farday iyo inay yihiin baan kala garan waayay dadkii nabiga dilay calayhi salaatu wasalaam dad baa wax la nabiga dhagaxyeeyay marka Soomaaliduna abtiriskeeda ma haysato ma ogtihiin waxa kasta ha sheegeen daarood iyo hawiye iyo jilic iyo jareer iyo Soomaali waa Soomaali waana dad muslim ay sheeganaysaa ha diintana ogaada garbasaarkaas qofku markuu huwan yahay waa gabar asturan haye ninkuna waa inuu jimcaha khamiis gashado laabo marka diintana waardiyaa laga yahay diintu saytaa laguma dhaqmo diintu xaduud iyo sharci bay noo samaysay ma fahanteen sida loo dhaqmahayana waa si ilaahay subxaana wa tacaala ka warrami kara dad waaweyn oo halka isku caynahaya maxaa ku hadlaysiin hooyadaabaan saas yeelaa anaa ku waxeeyo haweenka doolshahoodii iyo cambarkoodii baa raggii iyo naagihiiba alla ku diray warka leexda ummadda oo ka xishooda oo ilaahay ka baqa oo xishooda oo hayscaayinina oo haysdhaaminina oo iscaawiya midada kale xagee la kala aadaa daarood iyo haween idinku ku hayo habeenii maalin baa la isguursanaya maxaa roose ay caruuruhu isku guursanaya ilmaha iskaga dhalayaan anaka hadda waana la dhala ka baana la dhalay daarood baana dhalay hayo maxaad ka qaban kartiin dhigaygu 775 waa daarood haye naag maxamuud Suleymaan ree mahado ree warsama aadan ree cali warsama maana haye ka warrama waan ku faraxsanahay aabahay maasha Allah tabaarak dadka isku dhiiga dad dircaamaba dhalaanba horta ma ogtihiin yaa dadka isku dhiiga dad dircaamaba dhalaanba annaka wake up baan nahay maskaxdayada madaxaana furan aqliga yaga too much sababtoo ah dadka fiira caddaanka iskuma guursadaan ilaa afar fac waa horena waa ku sheegay in adeerka waxa waaye horta waxay ka afar waxba bas ay isticmaalaan fahanteen waxay isticmaalaan famiil waa caruurtaada iyo inta is dhashay waa ku siin waa in adeerka waa sislingin waa in adeerka saddexaad waa brunlig afraad waa cilmi wardheer oo kale ree cilmi wardheer oo kale isma guursadaan idinkuna boqol cunug baa iska dhasheen oo dalbale aqash caleeg mar ordo ummadaha ilaahay muslimka ka kala guursada dhiig waa inuu max noqdo qofku markaas wuxuu noqonayaa fax ana hadda dhul bahanta dhiig iigu jiraa mareexaan sagaal ayayaan ka joogaa awrtable ayaday macaan gabaree cali madooba ina cabdulle xuseen samaysana hooyaday macaan ina aadan timay yare maasha Allah tabaarak haye ka warrama dhiigaygu saas fresh u yahay anoo da'daasan 15 jir aqligayga u shaqaynaya fahamteen maxaa ka qaban kartiin laakiin hayscaayinina midda aan ka xishoodo dadka TikTok dabca sarow bal quraan saar yaa anigu aayad yar baan ku aqrinaya dadka TikTok qof TikTok dadka caayinayo ii saarin like fartanayo saas haduu raba ii dhaho sababta wadaad baan haybiyay wuxuu yiri lacagta la isku caayo xad laguma aadi karo sadaqa laguma bixin karo lacagtaas aad isku caayaysiin xad kuma aadi kartiin sadaqa kuma baxsan kartiin waxba kuma waxayn kartiin wax taariikh badan baa jiray ma ka sheekaysiin
soomaaliyaaba saas wada taariikha sababtoo miyi iyo magaalo isku darsan baan ahayn mogtihiin waxaan la yaabanahay ilaahay subxaana watacaala xaduud buu noo sameeyey marka aniga dabcasar baa qur-aan saarayna dabcasarow ku akhri mucatateynka aniguna caawa waxaan ku akhrinaya asal allahu cadiim rabulcarshi alcadiim an yashfika reer tiktok baan ku akhrinaya asal allahu cadiim rabulcarshi alcadiim an yashfika asal candhuuf laguma tufo waa nacaw yar asal allahu cadiim rabulcarshi alcadiim an yashfika asal allahu cadiim rabulcarshi alcadiim an yashfika أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سينة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذين يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحضون بشيء من عملا إلا بما شاء وسع كرسي السماوات ولا يدو حفظهما وهو العلي العظيم صوماليدان إلهي سبحانه وتعالى إله عافي إله شرطك قاد إله عيدك مدوبيه ilaahu dad isjecel ka dhig ilaahu ceebtooda rabbiyow caad saar ilaahu dad walaalaa ka dhig ilaahu qabiilka ka madoobee ilaahu waa dad isdhalay ilaahu waa dad qulyaal kaafuruun isku ah ilaahu rabbiyow caafi ilaahu rabbiyow ummadeeda isku soo jeedi ilaahu shaydaanka iyo sixirka iyo kuwa falaanfulka iyo xaasadiinta acuudu billaahi bikalimaatillaahi taamati min sharri maa qalaq ilaahu wixii xun naga qabo ducadaas akhrisada adkaarta aynu ku xun adkaartaad ku liidatiin أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أسأل الله عظيم رب العرش العظيم إله أمضان عاف إله ما يشر لك هاي أداؤك إله ما يشر لك هاي أداؤك مدد اللباد ويلشان أما هالصوح مي أما لبيبها كل شيء نفرها كقاعدة dadkii horta weynaan ogeyn waxaas waa jiraan carabta ama muqanas dhahdaa ma magac bay dhahaan waa wax jira faraha ka qaada dadka faraha ka qaada xisaabu cinda allah xisaabu cinda allah xisaabu cinda allah dadka faraha ka qaada bismillaahi raxmaan raxiim dabcasarow habeen walba oo isniina oo dadka waa quraan saaraya gabadhayda baa quraan saar waa idiiday hadda maasha allah tabaarak ii soo duceeye gabar aan jeclaa waa ii fiicnayd maasha allah tabaaragaasi si iga ay ma maqlayso waa fiicantahay laakiin ma shaqaysanayso waa la sixraa la leeyahy laakiin allahu yaclam ilaahu kuwa wax falaanfala oo wax sixra oo ummadda dhiba ilaahu rabbiyo aakhiriya adduunba ku celi ilaahu hoostooda ay ka helaan sharta allah naga bixiyo shaydaanka allah naga bixiyo dadka waaweyn baa laga ducaystaa fahanteen ilaahay fiicana wallaahi bilaahi soomaali maxaa iga dheliyaan idhaahdaa shalay waxaan fiiriyey inta afrikaanahaan fiiriyey shaloo dhan youtuubyadooda fiirsanay wax iscaayaya male wax cunno karinaya iyo wax foorleysin akhrinaya iyo wax daansaynaya iyo wax beera abuuraya annakana waa iscaayaynaa halla iscaayee islaamaha doolshahoodii iyo cambarkoodiiba alla lagu ku diray hooyadaa cambarkeedii hooyadaa doolshaheedii hooyadaa mareedhahaya dhinacna waa ka ammaanahayaan yaa markaan ku arka waa ka maqsuudi lahay aniga waxay iila tahay hooyo aragtida aniga makiya madiina waa tegay waa run maxaad hooyadan ka rabtid odayaashaana oo meelaha ku turbahayo waxay ogaan aan la arag maacaydiin istakfirullah waxay ku turbahayan iyaga laftigooda bahalka waxaa la taabtay balaayada soomaaliya lagu soo fardaa gaartay marka waa kaas khayr baa inii rajaynayaa allahuma salli calaa maxamed ma jeedin korkayga maasha allah tabaarak weyse waxaan ahayn ma marya ilaahay ugu ogyahay nuur calaa nuur saasaa u nuurahaya boy 70 maxaa iiga haray 70 walaahi 70 meeqaa iiga dhiman yaa meeqay ku tiri khadiijo intaysa dhiban 14 sano war waa yarahay weli maasha allah tabaarak da'dana waa lagu faanaa ilaahu cimri dheer caafimaad oo cibaado leh nasiibaa la yiraahdaa ma fahanteen ilaahu cimri dheer oo cibaado leh marka waxaan isku ognahay inaan la iscaayin oo dhibaato la isku geynin anigu caawa quraan baa in ku soo akhriyay dadkaasaana ku akhriyay bismillaahi allahuma salli calaa maxamed walaalayaalo ha la iscaawiyo habreertay milyoonna caawa fariin baa u farahay horta waaba ka ilooba habreer milyoon galaadaad joogtaa laakiin waa inaad timaadid wacays gaala eri dahartiisa qabrigiisu meesha ku taalla ma kuu sheegaa taasna caawan kuu sheegayaaye magaalo la yiraahdo waxaa la yiraahdaa markii gaalkacay laga soo tago maxay ahayd dagaari buu ku yaalaa qabriga daharta wacays gaala eri baa la yiraahdaa meeshaas waa inaad tagtid 1 milyan oo flow waa ku helaysaa
daharta wacays gaala eli ayaan dhaweyd baan arka saana meeshaan qabriga ayaa iskale nin caanaha lahaay waa dahar meel dhiso soo hagaaji qabriga awoowe mahmaha baan ka maqli jiray hooyaday waxay dhihi jirtay mataqaanaa qaraabaha wiyi qabri daarood marka qabrigaa waa in la tago qabriga ugaastiinina waa in la tago annaku waa tagnaa cabdalii cawareero meel la yiraahdo suguliya sacalbugumaal roob baaba ku da-aa lagu leeyahay inta ariga la geeyo xoolaha la geeyo waa maqaadiir ilaahay waa roob raxmad baa iska timaada xoolaha dabiyo lama qahato adugu bal ka waran qofkeeda xoogaa digriya sii alifana waa la khaliifaayo cimaamadaa la saaraayo wax leeda qofkaas waa awliyo marka habar yar soo arag daharta muxuu ahaaye wacays gaala eri kuu sheegay meeshay ku taallo gaalkacyo markaa ka timaadid waa magaalada ku xigta dhinacan xamar markaa ka timaadidna waxaa maraysaa beledweynaa dhaafaysaa dhuusamareeb guraceel xarar meelahaasoo dhanaa maraysaa galinsoor bandiiradley 3 xiglo markaasaa dagaari tegaysaa wacays gaala eri halkaasu ku duugan yahay soo aragoo soo dhis qabrigiisa intaa ka aruurisay reer biciidyahan waxaan kuugu sheegayaa maalin dhaweyd baan kaa maqlay adoo leh ismaaciil jirdhe walaashay baa ilmo u dhashay ay dhashay eedaday caasho bootaan maryan macalin ibraahi gabar fiqshini ah fahamti laakiin eedaday baa dhashay macaan faadumo bootaan xasan cilmi wardheere galbeed baa dhashay adaan kaa burto xatir qofku waa inuu is ammaano waa inuu iska sheekeeyo marka habar yar waa kaas khayr iyo barwaaqan ku rajaynaa soomaalidana hala isku duceeyo caydana iska daaye hooyaday waxay dhihi jirta dadcay waa duloobaa dalcayna waa dalaabaa soo maanaa dalaabin adduunyadii maanaa gelin fiiri dadcay waa duloobaa aakhirka wax xun baa u dambeeya qofka dadcayga cudurro xun baa ku dhaca afkan waa meesha afkan ma jeedin waa meesha ugu qaalisan qofka bilow aadanka weliba carabka meesha laga hadlo waa carabka iska daaya cayda awoodda ilaahay halkaas 2 malaa'ig baa inii saaran qam haddii lagaa dhiga ka waran suman bukran cuman jam lagaa dhigo lagu aamusiyo anigu dabcasar iyo culimmada kale waa inaan halkan dadka tiktoga waa inaan quraan saarno dadkan jinkii nebi suleymaan baa lagu soo fasaxay habaryartay ina habtiday reer biciidyahan way reer gaala eri laakiin wacays gaala eri dagaariba ku duugan yahay dadku inay isla deganaan jireen oo isdhaleen tan iyo xaawiyo aadana inii sheega qabyaaladana naga dhaafa waana leys yaqaanaa wixii goba wixii muxuu ahaaye xishooda wixii deeqsiya soomaalidu waa istaqaanaa hadda meelaha tiktoga lagu faanahayo waxaas iska dhaafa gobbaa meecaad la geelbaa ilmihiis korsada iska dhaafa waxaas waxba wixii faanana faraha ka qaado faanaa falar baa maqan qof aanana haddaa aragto walla hooyaday baan ka bartay faanaa falar baa maqan faant dadcay waa duloobaa dalcayna waa dagaaga eray kalaa jiray laakiin ma xasuusto hadda waa sidaas iyo khayr iyo barwaaq qof dadcaayana yuu like ii saari far hoose iyo far sare iyo like midna yuu ii saari qof dadcaaya sababtoo waxaa la yidhi shilinka dadcayga laga helo waxaa waa kugu dhimbil waa khatar sadaqa kama bixin kartid qofka waad u dirtina ilmuhu la siiyo waxaas khalaas suuqay ku wada durdurinayaan sidii maxaa yidhi xoolo 2 caloolyaa cunay 2 caloolyaa ma taqaan xoolaha hada u dhacdhacaan haday dhahaan marka waa kaas khayr iyo barwaaqa inii rajaynayaa youtube-kayga iyo waxayga hadda bilaabayaa ayaamahan walaashay baa jiranayd ilaahay baa oofsaday walaashay khadiijo maxamed cali qof walbaba allah u naxariistaa ii dhaho waa kaas dadka caayana walaalahay baa tihiin waa in jecelahay laakiin layga ha ii saarinina hana suulka hoosana ha ii saarinina qof inta dadka cayda inta muslimka ha ii taabato waa kaas wabilaahi tawfiiq